reer galbeed maalintuu yimi caalamul islaam gumaystay shay quru ku dadaalay inuu sharciga dhaqanka ka saaro dabeetana Indian Penal Code iyo qaanuunkiisa inuu keeno laakiin dadka waligii uma diidin in masaajidda la galo way wuxuu isiri xagga way kici doonaan hadaad gasho marka masaajidda iska galaan dumarka say doonayaan ha u guursadaan ha dhaxladaan laakiin maamulka ayay soo hadal qaaday maamulku in ilaahay loo hogaamiyo taasi meesha ayuu imanay gaalku wuxuu burburiyay waxa ay khilaaf islaamiga taasi buu ku guuleystay ilaa haddana guushiisii wuu sitaa oo gaalkii hore markuu tagun baa gaalka loo madoobi ku fuula midabkuun baa isbedelay maalin dhaweyd baa halka waxaan ka maqlay gabay nin Soomaaliyeed malaa uu lixdanadii tiriyay oo kaga hadlayay waxa isbedelay Ingiriiskii iyo qoladii kale wuxuu tilmaamayay inaan waxa isbedelay aanu nidaamkii ahayna waxa isbedelay inuu ragii u lahaa ninkii cadaanayn daaqada laga saaray ninka loo madowna isma doorin gaalkaan diriyo daafta kii koraya dusha midabka Soomaaliba diirka mood yani erayaa abu tilmaamaya in waxa isbedelay una yihiin nimankii meesha galay ee aanay ahayn waxa isbedelay maamulkii meesha yaal